بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مدحوينها قدوميها أغلق السنة كتغين كيس الكوبات قدوميها وراها شعب كتغين كيس اللبات وراها شري فاضمه oo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka galmudug senatarada iyo xildhibaanada wasiirada iyo xildhibaanada galmudug ee caawa halkan gogosha ka fidsantoo runtii farxadda leh odayaasha dhaqanka oo ogahay galmudug meeshay ka keeneen iyo dhabaradaygii ay u soo mareen iyo caawa guusha iyo ducaday halka la fadhiyaan gudoomiye xalin yaray oo halka ka hadashay oo doorasho markay sheegtay aniga mudda laysoo magacaabaya kalkan doorasha ah dadkan doorashada ka rabana caawa halkan ay fadhiyaan xalimo adiga u baan waa iyadana waa soo dhaweynaa walaashay waxaan dhammaan dadka halka fadhiya ee magac walba ay ku joogaan aan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saraakiisha ciidamada kama tegin iyo ammaanka iyo hawsha fiican ay halka ka hayaan waxaan rabaa kaftan inaan ku bilaabo waxaan maqli jiray haddaa waxaan rabay inaan cabdullaahi geedi boqorka arrintiisa aan ku halqabsado laakiin waa laga soo saran boqorow galaalay aniga adigaba noola soo fiirshay marka waxaan rabaa inaan guddoomiyashada waxaan maqli jiray habeenkii inaan hubiyo ku shiraysa howlkan howl ku shir wax soo ma oo habeenkii ku shiraysa wala caawa magaciisa la soo guddoomiyashada dadkaa la isugu kaa keeni markii hore habeenkii keliya aad haysay hadda reer galmudug oo dhan baa lagu dhiibaya maxaa yeelay waad istaahishaa geesinimada aad halka kaga hadashay ee 50 milyan habeenkiidinaad toban uga qaadan rabtaa aad u malayna garaadkaa bilaaba 50 miya tobanka maya konton milyan ayuu ka hadlay guddoomiyuhu marka 50 milyan dabcan meelay ku samaysan tahay waxaana bilaabay ninka la yidhaha yabooheed ugu horreeyey yuusuf garaad aniga hadda kuma yaboohi karo 40 milyana ugu tahay 40 cabdullaahi geedishado boqorkayna aw 40 milyan ma loo qaada ma soo cabsada waa badan meeshaan markaan boqorka ku hal qabsanahay ويا بنت الجلد كسر حريوة وحنا فرتك مليون وقاعدة والله هذا مشروع haddaan sahan xawaa socdaalkii nabadda oo laga soo bilaabay muusamareeb ee caawa aan hooyo ku joogno haddaan u dhici lahayn rajadaana lama gashay waxaan rabaa inaan caawa qabiilka ceeb ma ah waa la sheegaya habargidiray sharafaad beyd maxaa laakiin idiin dhiman inaydan dib noo soo celin horaan u soconnay adinkaana na socodsiiyey haddaad na soo celisaan wax damba nooma suugsamaya waa in laga shaqeeyaa sida galmudug ay ku gaari lahayd meesha hadda aan higsanayno waxayna ku gaari kartaa dadka qaarna waxay ka shaqeeyaan dhaqaalo qaarna waxay ka shaqeeyaan amniga qaybta amniga
بريا هو هاي دان هذا إلى هبل كده إذا مشكلة قوة لها من لقيت دي عاو أول شيء أسوي ما سيدا حتى عاو هرمود قتين هو مركب وحنا كرمنا إن واحد قلنا قتان هرمود قدوم يسوع ناس مهينة وحنا بلنا عاو ماشى ما ينفع على يده هذا البلد مرة بين أسكتور وحنا بلنا هو مرة أمني iyo dhaqaalo iyo dekado iyo hawaahay kaabayaasha ku sareysan wadadan hadda ku soconaana wadada lagu gaarayo waa ilaahay idinkiisa cadawga iyo cid kasta oo ka soo horjeedana waa ka adkaanayna haddaan sidaan isugu duubanna isku duubni waxaa kaloo rabaa inaan hal hadal ilaahay waxaa laga sheekeeyey 60 sano ka hor iyo 20 sano ka hor dadkan weligoodba looga sheegay wax meelan tagnay oo lagu diray oday wuxuu barooniyan qola ciyaarsiin markaas aan laba magaalo ciyaar baroon si nabad lagu sameeyo oday ay taysiga ugu yiri 3 sano jira 6 sano jira qofkii ninka hebel hay'adkiina ila maanta xalaada wax qoray dadka colaad iyo dekada la'aan iyo dhaqaale ma jiraan ayaga u baa isku qoray عاو استحبنا جبتر كاس وأنا يحريها هذه ما تسوي ما هو يكون شيء على رأس كارك إيوه وهذه شر مكان سود دقني أيام الحوينا يلو بدون حوينا سقف فيها أيام حنقول ديارة مكان كسود دكتور حسود دقني بدون يبصر بغاني ما نعود عن بصوت لو المكان التقاني حزب المعارضة حزب المحافظة إلا بسم عارف محافظ قوائري ولا السعوداء ما حيك ولا السعوداء يعني سياستك ولا السعوداء يعني الدلني ماذا إيه تقالها إيه هرمتك ولا السعوداء أحمد وحن كاجم هالعلة إن المعارض المحافظ يقوم بيسيهم وأنا فقرت أجنهاي هذه النومات